بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللبانك قرنك سيهايها سفارة قدوميها دقمدا لمان أخيار تقييمها بغن إهال كان سوء تمد وعلماء الدين إيو سياسيين hore iyo kuwa hadda iyo akhyaar waaweyn rag iyo dumar qof la arkaba magaca iyo masabka uu ku fadhiyaan ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhaweynta qiimaha badan iyo afurkan akhyaarta meelaha dheerdheer ka timid oo aan qaar ka mida igala hadlaayeen magaalooyin aad u fogfog. waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin. qof la arkabane wixii uu ka geystay ilaahay ajir ha ka siiyo, ramadaankana allah naga aqbalo. intaas kadib waxaan rabaa sida la sheegay waqtigu waa iska gaaban yahay laana ramadaanna waa la joogaa, salaadna waa la iska rabaa. dad meelo dheerdheer ka yimid oo beri shaqa laga raba inay joogaanna waa aadan aan u qiyaasaa. marka waxaan rabaa warka inaan soo koobkoobo. ugu horreyntii haddii aan hormar xaaladda guud dalka aan ka nimiday, waxaan isleeyahay wax idinku seegan iyo wax la moog yahay oo dadkan loo sheegayo haba yaraatee ma jiraan. waxyaabihii xalay iyo dhacaya rag dhallinyaradan ka mida oo inay ogaan karaan aana ogeyna waxay igu soo dirayaan qoraallo maanta xalo waxaa saa dhacay qofeblaan kursi laga qaado qofeblaan loo dhiibay kanaa la qabtay. kulli marka waxaa waaye wax qof seegan ma jiraan, waa la wada ogyahay. haddaan kor maro marka xaaladda guud ee siyaasadda guud, anigu horta hirshabeelle waa berigi hore waa joogay, la taliya madaxweynena waa ahay, laakiin hadda waqtiga hadda la joogo hirshabeelle ma jiro. waxaan joogaa federaalka guddiga dastuurka qarankan ka mid ah, guddigaasaan ku jiraa. marka warbixinteennu aniga iyo xildhibaanka waa isu dhawaan doontaa. aniguna waxaan ka shaqaynayaa ninkaan u geynaya waa kan oo isagaa fadhiya, marka warbixinta isku mid ay noqon doontaa haddii ilaaha yidhaahdo. haddaan xaaladda guud idin dulmar waa ogtihiin, waxba laydinkaga sheegi maayo. dalkan markii uu yimid madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisa ra-iisul wasaare xamsa, tallaabtii ugu horreeya oo uu qaadiyey waa ogtihiin. asagoo weli salka dhulka dhigan ay wuxuu bilaabay la dagaalankii argagixisada. xaqiiqatan faa'iidooyin waaweyn ayuu ka gaaray oo ilaa hadda maanta dhulkan la yidhaahdo hirshabeelle, khaasatan shabeellaha dhexe iyo hiiraan, wuxuu webiga ka bariya ilaa iyo galguduud kuwa eeldheer iyo dhulkaas gey, intaasoo dhan waxay bari ka jira maanta ay xor yihiin. dawaadani waa taqaanin dalkan waa dal ma aragtay burburay oo soo kabasho hadda ku jiro, soo kabanayo. maalin la arkaba khilaafkiisa iyo jalaftiisa iyo howlihiisu ma dhammaadaan. waxaa ku gaar socday dastuurkoo dhammaa waayey oo aad og tihiin 2012 xilligii dowladda ku-meel gaarka aheyd oo sheekh shariif sheekh axmed la soo qoray oo ku-meel gaarkii looga baxay, laakiin dhammaystir u baahnaa oo ay aheeday teeramkii hore oo madaxweyne xasan sheekh in la soo gebagabeeyo ay suurageli weysay oo aan soo gebagaboobin. 5 sano iyo barkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo joogay ay suurageli weysay. xaqiiqatan madaxweynuhu wuxuu u arkay markaas asaga inaysan suuragal ahayn inuu 2 jeer soo laabto dastuurkii oo qabyaana uu ka tago. taasoo socota ayuu ku gaar bilaabatay dastuurka. waa iska garanaysiin dastuurku waxaa waaye dhowr qaybood ayuu leeyahay. qaybo u baahan heshiisyo siyaasadeed in laga galo iyo qaybo aan u baahnayn oo caadi ah oo heshiis siyaasadeed aan u baahnayn.
وحي لقى دقائق اللي ودبعته إيه كجرتي وحي قيبت وباهن هشيسية السياسة سنة هوري والله قوض ورقة بحر ملينا وحي سوي مدي مدى اللي يراهو مدى شوطة شيئا قرن وككوبا مدحتوية ده إيو استيرية ده إيو رئيس الوزراء كحجانك أو أصل الوقوي مثلاً هشيسي قارين وهشيسي لو باهنا هشيسي لقى قارو وحبضا وكميدة هشيسي كقارين لكن مع أسف وحاسورة قلويسي دولة بورلاندي آيات دي نكال يراس أي عبد الله الدنيا وحان كما قرأ حسن سألنا كما صعكنا ما دام أنت كلا إسراعي وحال لي المركة هالقف iyo inta aan waa kala badan yihiin bahasha hal galo horaa loo galo wala socodsiiyay markii la soo qoray oo la diyaariyay waxaad ogtihiin 12 sano waxa laga dhaqaaqi lahayd waxay in baarlamaanka la geeyo asuura gilweysaba abraaciisi wixiisi waa la diyaariyay baarlamaanka waa maray waa ka gudubiyay asagina 16 jabtar ayuu ku kooban yahay أفر دكتور أو كمدة برلمان كيوريان سنة دكتور آخر سواد وانا ماذا يدو هل دكتور هذا لو نحجرا هدي إلى هنا هذا ماذا وعين نقول دون تاوحي لقب بدلا إنت رئيسه بدله يبلو وسوع عليه برلمان كنا ياسريا شغل الحركة سيوصل واحد وقته المركة غيبة كمدة إن سياسيين وأركان inaysan ayaga u cunanmin oo ay leeyihiin waxaan waa shakhsi gaar ah ama dad gaar ay wataan si kastaba ha noqotee meesha ugu dambeynta oo lagu kala baxayo dadka kala saaraysa waxay noqonaysaa waa baarlamaanka markay ka gudubtana waxay aadeen dadweynaha haddii baarlamaanku soo ansixiyo oo dadweynuhu diidaan wax kama jiraan waay wax soconaya ma jiraan marka شخص اللي جري كرو أما جاب له قاعدة ما هنا وواحد بنان كيالو أو دور أي تاجت هاي أو بعرضان كدودة أيو أو لبعض قلا أو هدي أيوة يسوع الصحيان تدوينها سوى من المال كستور كتوغان لبعض كانوا كمان لو بعيا إن أي الصحيان مركا حالة دكتور سلاس أي مريسا أرميه ما عرفت أرمها أمنية حقيقة مال وفي عنا لسوق هاري مش اللي جوج جلوات وقتين ما أنت على قرحية بهالكاسال قرحية كاسال يا دكتور شوي كذي مركز أنا ما كان صديق عنده اللوجو تاعي ودقال كشباب لوب اللعبة أمن وآدي أيوه وأنا كسنادي إثبت الحب لهاي وحاليا يابنا هايو حتى مسكحين الكوين إن هذا واحد عين مقالة المقشة كذا عين مركب ورانا ما أفر لو تكسر إذا عين قلبت إذا صبح إذا عين واحد يبغى معهن لكن هذه أي كتوسين يسوع لو كسر الله صودا فلو كسر الله صودا فهل كم ورا واحد عين ما إن ده كليل يدري ما يعني وحي كتوسين أمن مركب ومرايو هي حالة دي سوسيد أولى مركب حالة تقول وربحين تعرف الواسلاس إن شاء الله تعالى حلوان قنوا يقدم بيد الدنيا وحان إصلاحي ما دام أن هير شباب أن جوجي إلى حتى أن لطني مدحوناها واجرا وحياة بدن وضد كجوحايو هير شباب له مركز إسليه المحا هير شباب له مر لو جلاء هير شباب له حا هيستو ما تدبود وضل كهيستو dhibaatadiisa ugu weyn hal dhagax ama halkii soo shamiida ama hal mismaar oo dirbi lagu dhufto oo aadan magaalada Muqdisho ka qaadin Hirshabelle waa loo dhisma karo magaalada Jowhar gaar ay ka xirreed dhagaxa magaalada Jowhar yimaadana wuxuu ka imaajiri in xamar laga keeno si hadda ahayd in meel la yiraahdo buurweyn laga keeno اللي رمال على البرف اللي راجع كانوا يورناك دور كاسوك إماجي أنت أصور الواحد ريد ولا بديد
لما كي أياكو حرنا سيد مقالة اللوجة علايا وحي هذا الرد بكذا وتدخل فطور إليهن لما كان ركروني السماء هذه المقالة لما كي كعليين وعارتيه إن شاء الله تعالى ولا سقاط أنت بدل وادي إنك استوجد كحرية واحد يرشب على اسم اسكندافي جدكي ويناي او دولة قطر اي دسيسay oo Turki ay qaateen oo dawladda Turki ay ka shaqeynaysa dawladda federaalkuna ay amnigiisa haysay magaalada Balcad magaalada Balcad ku xiran yahay hore in loo gudbiyo la awoodo sababta keentayna waa sababta amni darrada jidka marka Hirshabeelle hadii ay wax qabanayso iyo hadii aysan wax qabanaynba waxaan rajaynaynaa insha Allah taala waqtiyada hadda nagu soo dhadhow in warkeedu uu cadaa doono intaas yar hadii jidka la furo markaas la arkaa wax qabadka Hirshabeelle bal in ayagu aysan wax qabanayn inay xaq Allah ka ay bahasha meel kale laga haysto markaas ay kala cadaa doontaa insha Allah taala aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad هذا الكوارث كلها أنا نقول لها تلقلكم أهين لكن هذا ما هذا مستعجل أنا ضرب الوضبحين أنا بحياة وحين قاتلت خصوين قاتل